goor kasta iyo goob kasta la soco Nasri Channel 990 noloshii Soomaali dib bay u dhacday hadii lagu xumeeyay hor Ilaahay baa looga tagaa marmar ummad yahay arliga wada degtay ee ku abuuray abti iyo ayeeyo adeer eedda iyo aaye eheliye xigaal baatihiin oodna wada yaal Bismillahir Rahmaanir Rahiim dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ka hadlayaa hal qodob inta badan aan idinku celceliyo ummad yahay arliga wada degtay ee ku abuuray abti iyo ayeeyo adeer eedda iyo aaye eheliye xigaal baatihiin oodna wada yaal arrimaha danteena haddaan la isla wada eegin oo aan ul iyo dir la noqo waan barayna aniga atoore ana armi badan haysta aniga amiiro iskale ayda iyo duurka waa inoo aqoon xumo hadii wiila lagu aaso ilaahay inta ka cabsataan nabada haysta colaaduhu ibtila weeye iyo aafa iyo hooge inkaar iyo waxa laga dhaxlaa ubad agoomoba ilaahay inta ka cabsataan nabada haysta bulshada waxaan idin leeyahay nabadu waa muhiim nabad baa naasna nuugale nabadu waa gogosha ragga saad ogtihiin ba nabadu waa muhiim nabada ilaaliya meel kasto dhibaato ka socoto waxaan jeclahay in sida ugu fiican lagu xalilo wada hadal lagu dhameeyo wixii taagan oo dhan wada hadal lagu dhameeyo nabadu waxay keentaa horumar cid ka adag ma jirto ummadda Soomaali waxaan idinka codsanayaa meel kasta joogtaan inaad nabadda ilaalisaan inaad qabyaaladda dhaaftaan nabadu waa muhiim waxa ummadda Soomaaliyeed intaas oo dhan dib u dhigay waa colaad dagaal sokeeye qabyaalad waxaan idin sheegayaa nabadda aan haysano meel kasta joogtaan nabadu waa muhiim wixii hadii lagu xumeeyay hor Ilaahay baa looga tagaa marmar wax kasta xagga wanaagsan ka raaca noloshii Soomaali dib bay u dhacday ku dadaala xagga wanaagsan mar walba oo tanaasulku haynagu bato wax garadka iyo cuqaashiga garaadada aqalada boqorada ha kaceen wixii taagan oo dhan iyagu ha dhameystireen